Morocco geeya miyaad bilowdeen maantana waa war cusub anoo geenya Soomaaliyeed heli kara maxaan ka dayaa Moroccan waxaan saa u qurxoon baa ila dhashay bal fiiri quruxdooda بالله عليك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ragga guursanaya gabdhaha ajaanibta ah hal baan ku dhihi lahaa war hooy kuwa Soomaaliyeed baa idin dhaamo hablaha Soomaaliyeed baa idin dhaamo ajaanibta aad guursanaysaan waayo hablaha Soomaaliyeed waa kugu diin isku isir baatihiin isku dhaqan baatihiin isku midibna waa tihiin gabar Soomaaliyeed gabar gaarta oo ku qiimo ah oo ku sharaf ah oo ku karti ah oo ku naxayso ma jirto dunida orodoo soo daal adigu gabar gaari karta oo la qiimo ah ma jirto gabadha Soomaaliyeed hablahana mid baan ku dhahayaa idinka ayaa u sabab ah in aan raasano hablaha iyo gabdhaha kale ajaanibta waayo waxaa jira duruufo badan waliba xilligan la joogo dhibka jira ayaa waxay tahay raggi waa wada guurdoon hablihina waa wada lacag doon micnaha hadda jeebkuusan ad lahayn hablaha Soomaaliyeed kuma rabaan oo waxba kugu fali maayaan marka si xal loo helo meel dhex aan isugu imaanno kharashaadka naga yareeya si aanan u raadsanin ajaanibta khayrul umuri awsatuha arrimo waxa ugu khayr badan kuwa ugu dhaxdhaxasan kuwaas ayaa ugu ansabsan uguna xal fiican waxaan markay kalaba banaanada ayaad wareejisaan oo ma asturtaan waxaan ka hadlayaa kuwa jooga baraha bulshada ee meelahaasi la wareega wixii la asturi jiray markii aan si sharaf ah u soo raadsanana buur baad saaraysaan oo wixii qaali baad ka dhigaysaan wa illa waxaa dhacayso in aan ooda jibino sidii ordida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالكن سي شاغريا ميل سره غارسيا